wasiirka warfaafinta maamulka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa ka warbixiyay sida hay'adaha ammaanka Galmudug ay ula macaamilaan dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay kordhay. Wasiir Abshir Cabdi Shiiqow ayaa sheegay in soo goostayaasha marka hore wax la baro oo fikradoodii hore wax laga bedelo sidoo kalena qaarkood loo sameeyo shaqo abuur oo ganacsatada lagu daray. isagoo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kulanti wacan wanaagsan khayrta qiimaha iyo qaayaha leh meel kasta ay joogtaan iyo si kasta oo dhageysanaysaan kusoo dhawaada maanta iyo wararka aynihan qodobada wararka aynihanna waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo soo goosanayaan misana ka soo cararayaan dhinaca dawladda ay ko soo dhiibayaan taas oo hadda tiradooda kor u sii socoto boqolaan iyo kumanaan sii marayaan ilaa hadda dagaalka waqti lagu bilaabay ilaa haddana markii ay kolayday wixii iyo fikrad xumeed laga dhacsiyay ay dil iyo hadii kolay meesha ku dhimanay qofkii dagaal isku noqdane ay noqonayso inuu meesha ku jooday ee meel xun ahayn uu u egyahay inuu dhiman rabo ayuu isu soo dhiibaya asagoo soo dawladda xageed u soo cararayo iyo dawladdii Ethiopia oo dagaal xoogan kula jirtay Oromo ku soo duushay ummadda Soomaaliyeed oo na rabtay dhulka Soomaalida ee lahayd oo inay xoog ku qaadato taas oo dagaal ka socdeen maalmahanba laguna suuqay Oromadii ayaa ay kana la sheegaya in dawladdii ay gacan ka gaartay liu police-kina ku guuleysteen dagaalkii ay markaa ayada kula jireen Oromada kusoo dhawaada wararkii oo faahfaahsan sidaan ognahay daawade madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh oo ballan qaaday oo dagaal inuu markaa ayadana ku bixin doono kana sifeyn doono Al-Shabaab meel kasto ay joogtaan uu dagaalamaan kula jiri doono waqtiga uu madaxda uu hayo taas oo dagaal uu kula jiray ciidanka dawladda oo badan uu dagaalamay asaga laftiisa uu dhaxsaday dhowr meel uu la tagay dhowr meel markaa ayada ee uu la socday meelo badan soo dhulkii in laga bixiyana aan la socono Al-Shabaab badan in la hasuuqay ayaan ognahay taas oo kaliftay hasuuqaadkii iyo midda badan dhulka laga kiciyay iyo ilaa hadda la daba socdo inay kalifto dadkii Al-Shabaabta ahaa ee mujrimiinta ah dhinaca kale ka dagaalamay inay isu soo dhiibaan ayagoo marka ayadan u soo cararayaan dhinacii dawladana marka ayadana hadii kolay iskeeneen oo sheegeen marka ayada inay rabaan dawladdii inay marka ayada sidii ku xukmin lahayn sidii ku marka ayada ahayd sida la yeeli lahaabo ee marka ay dawladda gacantooda u soo galeen taas oo marka ayada u eg in marka hadii kolay laga guuleysanayo waayo nin la dilo iyo qof mar gacanta lagu dhigo iyo ku isu soo dhiibo haday noqdaan way iska yaraanayaan waan ogahay hadii fikrad xun baa laga dhadhiciyay dadkii diin baa u dhimanay ilaahay dartii baa u dhimanaysa baa la leeyahay taas buu ku galay marka hore laakiin hadii asaga qofkii uu fiiriyo maskaxdiisa uu gadaal ugu noqdo kolay inuu dhiman rabaan xaaladii ku socoto waayo nin la daba taagay oo qori loo haysto wadan idil ku soo duulay isma reebi karo taas ayaa ku kaliftay inay isu soo dhiibaan hadii kolay in la soo dhiibo in la dilo in xoog lagu qabto kolay intaas bay ahayd haddana hadii isu soo dhiibaan waa arrin wanaagsan meelaha marka ayada dawladda sidii ay yeeleen ayada garani laakiin in marka hadda waxa uu eg tahay boqolaal ay soo galayaan mise boqolaal ay isu soo dhiibayaan ayagoo marka ayada dawladdii gacanta ku soo galaan ciidanka dawladda meesha ka dagaalamayaan gacantooda ku soo galeen taas oo arrinta u eg tahay arrin wanaagsan oo arrin guulna waayo ninkii isu soo dhiibay jab weyn ayay u tahay dhinaca Al-Shabaab waayo qof idil ayaa ka baxay haddana waxay sii marayaan kumanaan qof oo ciidanka dawladda isku soo dhiibayaan taada kale waxaan la soconaa iyadana dhinacan iyo jabhada hubeysan oo ku soo duuleen ciidankii iyo ummadii Soomaaliyeed ay degneed Ethiopia gaar ahaan dhulkii ogaadeenaya ee Soomaalida ee degneed kuwaas oo marka ay rabeen inay dhulkii boobaan oo ummadii meesha ka kiciyaan ayaa madaxa la isku jiray oo liu police ay ka madaxa iska shadeen kuwaas oo hadda maalmihii idil socotay in badan oo dagaalo badan meesha dhex maray ayaa hadda si wararka nagu soo gaarayeen in meesha lagu hasuuqay ciidankii meesha iyo ay kala dagaalameen meesha ay lahayd taas oo hadda marka ayada lagu laayay in badan laga qabtay hubkii wixii haysteen gacanta looga dhigay taas oo in kasto hadii kolay dhulka ay ka eebalaheen oo dhul ay ka eelaheen marka hore ay ku soo duuleen dawladdii Ethiopia hadda kolay say u egtahay hadii dawlad ninka soo dhulkiisa ilaashanay noqotay beel kasto oo cid kasto oo dhulkeeda inay ilaashatay noqotay Oromadii oo marka ayada kolay inay is aragtay inay ummadii ay kolay xasuuqi karto dhulkeeda ay xoog ku qaadan karto ayaa soo duushay taas oo marka ayada dagaalo dhex mareen liu police iyo ciidanka dawladda ee meesha joogay
taas oo kaliftay in marka ayada hadii looga reebo meeshii ciidankii ayna ku guuleystaan dagaalkii dad badan laga laay oromadii wax gacanta lagu qabtay iyo hubkoodana gacanta lagu dhigay ayaa wararka nagu soo gaarayaan marka taada hadda waxay u egtahay arintaas hadii nin dhulkaada ku soo dhiiraday oo asagoo ku og waxaa la sheegaa hadda sawir mid kasta Soomaalida hadda in badan ay ninkii Cabdi Ilay ay amaanaan waxay ku amaanaana ma ahan fiicni iyo wanaag dadka Soomaaliyeed u hayay laakiin dhulkiisa laguma soo dhiiranaynin ayaa lagu leeyahay dhulkiisa lama soo galaynin dhulkiisa Oromada iyo Amxaarada ma soo dhiiranaynin masana may calal ay ku soo galaan dagaal ay ku soo qaadaan may qabin laakiin Mustafa Cagtar kisto waxa dhinacaas waa laga dhaliilaya asagoo la leeyahay marka dawladii iyo marka hadii nin madax ayuu ahaa nin dawladda ku dhisan ayuu ahaa nin dimaanta gacantiisii iyo markastaba dagaal inuu ku jiray ay ahayd waayo dadkan dad isku turaya ma ahan waan ogna maxaarada dalkan Oromada dagaal weyn ayaa ka jira dawlad kale oo marka ayada ka reebeen ma jirto ina adin iska reebto bay ku haboon tahay kaas oo asaga laftiisa dhaliil yar laga arkay iyo marka ayada gaamni iyo inuu isgaabinayo taas ayay ku kaliftay in ay ku soo duulaan laakiin ciidankii meesha joogay ee police meesha kama ay bixin wali way joogan dhulkooda iyo dadkoodana way u dagaalayaan kuwaas ayaa ka hortageen argagixisadaas iyo kuwaas dhibka u hayeen misna dhinay xoog dhulka qaataan ay rabeen kuwaas oo laga guuleystay meesha ayadeed wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh